waxaynu maanta safar ku taginaa magaalada Aomori, Japan. Sanadku waa 1936. Maxbuuskan lagu magacaabo Yoshi Shiratori kuma qanacsana xabsigan loo taxaabay. Waxa lagu eedeeyay afkana laga galiyay dambi aanu geysan, waxaana si dulmiya loogu xiray xabsiga Aomori ee dalka Japan. Waxa taa ka sii daran dacwad oogayaashii kiiska ku soo eedeeyay waxay qorsheynayaan in xabsi daayin lagu xukumo. habeen kasta waxa gacmahooda ku garaaca ilaalada maxaabiista, balse Yoshi Shiratori ma doonay inuu ku sii nagaado xabsiga, waxaanu diyaar u yahay inuu baxsado. walow xabsiga Aomori aanu ahayn xabsi ay sahlan tahay in laga baxsado. inkastoo ay duruufahaasi ku hareeraysan yihiin, haddana waxa ka go'aana inuu baxsado. waxa uu bilaabay saacadu markay ahayd 5:00 subaxnimo abaabulka qorshihii koobaad ee uu ku baxsan rabay. waxa uu ogaa inuu haysto 15 daqiiqo oo albaabada xabsiga iskaga furo, waxaanu qorshahan sirbaadhayay oo indhayndaynayay muddo bil ah. subaxii uu baxsanayay markuu xabsiga sanqar ka waayay, wuxuu la soo baxay taar yar. taarkaas oo marka hore kala soo baxay qasabada ku taala musqusha qubaysiga maxaabiista. ugu horreyntii way ku adkaatay inuu furo dhaxan daran oo jirtay iyo gacmihiisa oo qaboobaa awgood, laakiin daqiiqada kooban ka bacdi wuu ku guuleystay waanu iska furay albaabkii, balse kama wada bixin xabsiga. maxaa yeelay waxa weli u harsan inuu ka gudbo albaabo badan, waxaanu ogyahay inay daqiiqada yari ka harsan yihiin soo laabashada iyo askarta ilaalada. sidaa awgeed waqti iskama lumin, dhinacna muujiisana waxa uu falowgeeda qabtay siduu albaabada uga gudbi lahaa. nasiib wanaagiisa wuu wada dhaafay albaabadii amniga xabsiga oo dhan, laakiin warka dheelada ahi waxuu yahay inaanu weli ka fogaan aaggii xabsiga. in la soo qabtaana ay ku filan tahay inay mar kaliya askartu nalalka xabsiga daaraan, afuufaana siidhiga digniinta ah ee sheegaya inuu maxbuus baxsaday. saacadu markay ahayd 5:45 subaxnimo, waxaa soo laabtay askartii ilaalada, waxaanay markiiba indhayn ku bilaabeen qolalkii maxaabiista. intii ay jeegaraynta wadeen, waxay arkeen inuu Yoshi Shiratori furaashkiisa hurdo, laakiin may ogeen waxay arkeen inaanu Yoshi ahayn ee uu yahay wax kale. lama ogaan maalintaa uu baxsaday, laakiin waxa la ogaaday maalintii ku xigtay. mar kaliya ayuu xabsiga buuq iyo sawaxan qabsaday, waa la isku yaacay, dhammaan askartiina waxay galeen heegan. markii dib loo eegay qaabka uu u fakaday, waxa lagu sifeeyey si xiroolihii xabsiga ka baxsaday, balse taasi kaliya waxay ahayd bilow. 3 cisho kadib, isagoo hosbitaal ka xaday raashin uu cuno, waxa basaasay qaar ka mid ah shaqaalihii hosbitaalka. sidaas ayaana lagu qabtay, waxaana dib loogu taxaabay xabsigii uu ku jiray. baxsadka uu sameeyey awgii waxa lagu xukumay xabsi daa'in, taasoo la micnaa inaanu dib ula kulmi doonin xaaskiisii iyo gabadha yar ee uu dhalay. bilooyinkii badnaa ee uu diyaarinayay qorshaha baxsadka, niyad jab iyo in 3 cisho gudahood lagu soo qabto ayay ku soo dhammaadeen. waxaanu iminka isku diyaarinayaa inuu xabsiga niyadda u sii daayo, noloshiisa inta ka dhimanna ku qaato. 6 sano kadib, 1942 intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, waxaa Yoshi Shiratori loo wareejiyay xabsiga Aketa ee ku yaala magaalada Aketa ee waddanka Japan. askarta ilaalada xabsigani waxay ula dhaqmeen si ka xun oo ka cabiidsan siday ula dhaqmayeen askartii ku haysay xabsigii Aomori. askartan dambena waxaa loo sheegay inuu ninkani baxsad hore iskugu dayay, sidaa awgeed uu u baahan yahay in fiiro gaar ah la siiyo. askartaasina iyagoo ku cabsi gelinaya inaanu qaadin tallaabo kale oo ku baxsanayo, waxay u geysteen jirdil aad u xun. marka laga yimaado handadaada iyo garaacidda lagu hayo, waxay u dirayeen shaqooyin aad u adag. markuu soo daalana waxay seexinayeen xilli qabow daran dhacayo sagxadda qol aanay gogoli oolin. Yoshi waxa uu xabsigan kala kulmay cadaadin aad u daran. waxaa lagu xiray qol sagbad ka samaysan oo kulul, cidhiidhiya, saqaf aad u dheer leh, cadceedna aanu ka helayn ilaa iyo ay duhurka gaadho, markaasoo xoogaa fallaadhaha cadceed uga soo galayeen daaqad yar oo saqafka sare ee qolka ku taalay. intaasoo kaliya laguma dayn, waxa gacmaha lagaga xidhay katiinad si aanu isu dhaqaajin, waxaana waxaasoo dhan lagu sameynayay si aanu mar dambe u baxsan. inkastoo cadaadiska sidaa u daran uu kala kulmi jiray askarta ilaalada, haddana waxaa jiray mid hoggaanka askarta xabsiga ka mid ahaa oo isku wacnaayeen oo lagu magacaabi jiray Kobayashi. Kobayashi muu taaban jirin marka la garaacayo, wuu u naxariisan jiray, waxaanu mar kasta la socon jiray xaaladihiisa caafimaad. dabcan naxariista ninkani uu tusay waxay xoojisay iimaankii Yoshi, waxaanay ahayd wixii sababay inuu niyad ahaan sii noolaado oo aanu rajo dhigin ilaa iyo laga gaadhay habeennimadii 15 Juun. habeenkaasi waxay ahayd habeen duufaan iyo dabaylo dhacayaan. Shiratorina waxuu iskaga jiray qolkiisa. goor ay saqbarkii ahayd waxaa soo booqday Yoshi ninkii askariga ahaa ee u naxariisan jiray, isagoo is yidhi bal ninkii xaalkiisii soo eeg waatan cimilo xun jirtee. askarigii markuu soo galay qolkii uu ku xidhnaa, waxuu rumaysan kari waayey waxa uu indhihiisa ku arkay. Yoshi Shiratori meesha ma joogo, waxaana kaliya qolka dhex yaala katiinadii gacmaha kaga xidhnayd. haddaba sidee buu ku baxsaday? waxaa jira waxyaabo aan joojin karin Shiratori, waana katiinada ay askartu gacmaha kaga jeebeeyeen. waxa uu aad xariif ugu ahaa furidda katiinada. sida xaqiiqada ahna waxaa jira qaabab kala duwan oo lagu furo katiinada, laakiin isagu waxa uu adeegsaday taar. siduu ka helaba waxa uu raadiyay taar uu iskaga furo. nasiib wanaagiisa waxa uu ka dhexlay weelkii cuntada lagu keenayay, waanu iska furay. markuu katiinadii iska furay, waxa uu fantay derbigii dheeraa. Shiratorina waxa uu xariif ku ahaa fuulidda derbiyada. markii uu gaadhay daaqadii yareed ee xagga sare ku taalay, waxa uu ogaaday inay daaqadu shabag tahay, laakiin qaabka ay u
samaysan tahay aan habeen lagu furi karayn sidaa awgeed waxa uu Yoshi xilliyada dambe habeenkii marka aanay askarta ilaalada u jeedin kolba in yar soo furi jiray daaqada kadibna waxa uu ku soo laaban jiray booskiisa si aan looga shakiyin sidaa markuu muddo ku waday habeenkii dambe daaqadii way u furmatay waxaanu gaadhay saqafkii sare ee guriga Yoshi markan inuu caadi xabsiga uga baxsado wuxuu kaliya la sugayaa waqti ku munaasiba wuxuu la sugayaa inta ay ka imaanayso habeen dabaylo dhacayaan si aan loo dareemin markuu dul marayo saqafka sare ee xabsiga way u hirgashay qorshihiisii waxaana la gaadhay habeen dabaylo daran dhacayaan sidaas aanu mar labaad kaga baxsaday xabsiga 3 bilood marka laga joogo baxsadkiisii taariikhdu markay ahayd 18 Sebtembar goor galab ah askarigii ilaalada ahaa ee Yoshi ka nixi jirayna uu gurigiisa joogo ayaa lagu soo garaacay albaabka uu furay mise waa ninkii baxsadka ahaa ee Yoshi oo diif iyo duruufi ka muuqato u baahan caawimo inkastoo uu dambiile la diiday ahaa haddana koobayaashii uu soo fadhiisiyey cuntuu siiyey waxaanu ka waraystay taariikhdiisa Shiratori waxa uu sharaxay kuna qanciyay koobayaashii inaanu kibir labada jeer uga baxsan xabsiga balse uu u adkeysan kari waayay xadgudubka iyo jirdilka ay ku hayaan askarta ilaaladu waxa uu sheegay inuu isagu yahay qofka kaliya ee ka damqan jiray sidaana uu iminka ugu yimi si uu uga caawiyo qorshaha uu wato qorshaha uu watayna waxa uu ahaa inuu Shiratori isku dhiibo ciidamada waaxda cadaaladda ah ee maxkamaddu maamusho markuu kuwa isku dhiibana waxa uu doonayay inuu racfaan ka qaato kiiskiisa sidoo kale waxa uu doonayay inuu furo kiis cambaaraynaya qaawinayna qaabka xun ee loola dhaqmo maxaabiista iyo nolosha bahdilka ah ee ka jirta xabsiyada Japan waxaanu si gaar ah u doonayay in waxyaabaha bini'aadantinimada ka baxsan ee xabsiyada ka dhacaya sifa sharciya lagu hagaajiyo Yoshi waxa uu qorsheeyay inay sidani tahay qaabka kaliya ee xorriyadiisa uu dib ugu heli karo reerkiisana uu dib ugu la midoobi karo sababta uu koobayaashu ugu baahan yahayna ay tahay inuu qorshaha macquulka ah ee wato uu si adag u taageero maadaama uu yahay madaxa waardiyaha askarta xabsiga Akita iyo askari si aad loo ixtiraamo daqiiqado kooban kadib markii sheekadoodii dhamaysteen labadoodii Shiratori ayaa musqusha galay intuu musqusha ku jiray ayuu koobayaasha la hadlay booliska waxaana ogeysiyay in ninkii inta badan la raadinayay ee Shiratori inuu gurigiisa la joogo askartii markiiba waxay weerartay gurigii waa la qabtay sidaasaana mar saddexaad xabsiga lagu taxaabay markan wuxuu naftiisa ballan kula galay inaanu mar dambe cid ku kalsoonaanayn baxsashadiisa labaad ee uu sameeyay awgeedna waxay maxkamaddu go'aamisay in ciqaabtiisa hore lagu daro 3 sano oo kale oo xabsiya markan Shiratori waxa uu dalbaday in la geeyo xabsiga Tokyo wuxuuna ku doortay cimilada xabsiga oo ahayd mid dhexdhexaad ah maadaama uu adkeysan kari waayay dhaxanta daran ee ka jirta xabsiyada ku yaala waqooyiga dalka laakiin waa laga diiday codsigiisa waxaanu qaadigii maxkamaddu xukumay in la geeyo xabsiga caanka ah ee Abshiri xabsigan oo ku yaala gobolka Hokkaido ee waqooyi bari dalka Japan ma jiro bini'aadan weligii ka baxsaday xabsigan Abshiri iminka taariikhdu waa 1943 qabow daran baana ka dhacaya xabsiga Abshiri waxaana la marayaa heer temperature-ku eberka ka hoos maray xitaa marka maxaabiista loo keenay cuntada inta la soo sido ay qaboobayeen oo baraf noqonayeen qabowga daran isagoo dhacayo Shiratori gacmaha ayuu ka jeebaysan yahay maryo fiican oo dhaxanta ka celisa ma xidhna waxaanu jiifaa qolkii uu ku xidhnaa isma dhaqaajin karo oo wuxuu noqday paralyze qabowga dhacaya awgii Yoshi Shiratori waxa mili kari waayay dhaxanta meesha ka jirta uu ka soo baxay qolkii uu ku xidhnaa waxaanu isku dayay inuu daydeedo qol xabsiga kamida oo diirimaada laakiin askartii asluubta ayaa soo qabatay waxaanay ku soo celiyeen bartiisii iyagoo waliba ugu daray jirdil markii intaa isugu dareen Shiratori isagoo caadi fadaysan ayuu hortooda ugu sheegay inuu ka baxsan doono xabsigan Abashiri waxbana aanay ka qaban karin qorshihiisa baxsadka waxaanu tusay inaanay wax faa'iido ah lahayn in gacmaha laga katiinadeeyo maxaa yeelay kullayba uu jabinayaa sidoo kale waxa uu Shiratori u cadeeyay askartii xabsiga Abashiri inuu xariif ku yahay fanashada darbiyada cid hor istaagi kartaana aanay jirin aynu soo ururinay markan Shiratori caqligiisa mu isticmaalin wuxuuna sirihiisii oo dhan barnaanka soo dhigay isagoo cadha hadlaya askartii ilaaladu waxay fahmeen awoodaha iyo qorshayaasha uu ninkani damacsan yahay inuu ku baxsado sida awgeed iyagoo ka hortagaya waxay ku xareeyeen qol si gaar ah loo ilaaliyay oo aanu ka baxsan karayn sidoo kale gacmaha laba dibla ayay uga jeebeeyeen lugahana waxay kaga xidhan silsilado jeebada ay gacmaha kaga xidheen culeyskeedu waxa uu ahaa 20 kilogram may lahayn wax furo ah qaabka kaliya loo furayana waxa yaqaanay farsamo yaqaano ku takhasusay biraha kuwaas oo iman jiray weegiiba mar waxaanay ku qaadan jirtay inay katiinada furaan dhowr saacadood xilligani waa xilligii qaboobaha farma dhaqaajin karo oo biraha ayaa damqaya nabaradii askarta ku dhigan cayayaan ayaa ku beermay looma ogola inuu qubaysto waxa intaa u dheer waxa laga yareeyay cuntadii la siin jiray waxa ay qiyaastii ninkan ku cadaabeen nolosha aynu hore u sii soconay Shiratori si uu u noolaadaba waxa uu ka baxay xilli qaboobihii isagoo bad qaba waxaana la gaadhay gugii ama xilli roobaadkii tani waxay la micno tahay inay tamartiisii dib u noolaanayso maadaama mararkii hore uu baxsaday ay ahayd xilligan oo kale laakiin muxuu ka qaban karaa xabsiga sidan u ilaalada adag bila ayaa socday waxna may dhicin
bishii August habeenada ka mid ah sarkaal ka mid ah askarta ilaaladu isagoo xafiiskiisa jaraa'id ku akhrisanaya ayuu maqlay cod uu ka shakiyay codka wuxuuna damcay inuu soo kormeero qolalka maxaabiista markii uu soo gaadhay qolkii uu Shiratori ku xidhnaa wuu eegay yaab ayuu gacanta dhabanka saartay wuxuu arkay mariyihii uu xidhnaa iyo katiinadihii lagu jeebeeyay ee u baahnaa inay farsamayaqaaniintu 2 saacadood furaan oo isag yaala dhab ahaantiina Shiratori waxa uu kaga dhabeeyay ballankii uu askarta ilaalada ka qaaday ee ahaa inuu marun xabsigan ka baxsan doono waxa la daaray codadkii digniinta wax la sameeyay baaritaano degdeg ah laakiin waxa la shaaciyay inuu ninkaasi sidaa ku tagay laakiin sidee arintani ku dhacday sidee buu ka awooday inuu kaga baxsado xabsigan ilaalada adag ee Abrashi dhab ahaantii wuxuu bilaabay qorshaha uu ku baxsanayay 6 bilood ka hor intaanu baxsan ilaa uu ka awooday inuu baxsan karana waxa uu kaalmaystay samir iyo adkaysi marka askartu cuntada uu keento waxa uu ka reebi jiray maraqa waxaanu habeen kasta ku shubi jiray hareeraha daaqada ku taala qolka uu ku xidhan yahay iyo katiinada gacmaha kaga xidhan qorshihiisu waxa uu ahaa inay biyaha milixda iyo saliidda la jilciyaan daaqada iyo katiinada bilo kadib waxa jilcay oo miriray boolashii waxaana u guuleysatay khidadiisii wuxuu isla markiiba saaray boolkii koobaad muddo uu yarkaadiyay kadibna waxa uu saaray boolalka intii kale u harsanaa dhamaadkii xilli roobaadka waxa uu ku guuleystay inuu iska furo katiinadii gacmaha iyo silsiladii lugaha kaga xidhnaa daaqada uu ka baxayay aad ayay u yarayd laakiin Yoshi uu ka sii gaashaantay oo waxa caawisay cuntada aanu cuni jirin maadaama uu caata ahaana isla markiiba aayar ayuu ka baxay daaqadii kadibna waxa uu sii jabiyay daaqad quraarad ahayd oo saqafka sare ee xabsiga ku taalay sidaas aanu ku baxsaday Shiratori waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ka baxsada xabsigan ilaalada adag ee Abashiri balse markuu sida xabsigan banaanka uga baxay waxa qabsaday caqabado kale sidee buu dhaafi doonaa buuraha qiimaha barafka ah ee fadhiyaan ee xabsigan ku hareeraysan taa marka laga yimaado markuu ayaama baxsad ahaa xaaskiisu waxay aragtay askarta gurigeeda agagaarkiisa ka dhamaan la waxaanay dareentay inuu Yoshi ka baxsaday xabsigii intaa kadib xaaskii Yoshi waxay ku ducaysatay inay Japan khasaarto dagaalka ay kula jirto Mareykanka si ninkeeda loo ilaawo oo gurigiisa u soo noqday isagoo nabad qaba sanad kadib bishii August 1945 waxa loo aqbalay ducadeedii Mareykankiina wuxuu la wareegay gacan ku haynta dalka Japan wuxuu wada bedelay nidaamkii wadanka oo ay ku jiraan ciidamadu waxaana sidaa lagu ilaaway Yoshi Shiratori laakiin su'aasha isweydiinta leh waa imika ma nool yahay hadduu nool yahayna xaguu joogaa jawaabtu waa haa wuu nool yahay wuxuu intaaba ku noolaa buur ku taala gobolka Hokkaido agagaarka xabsigii uu ka baxsaday halkaas oo uu ka samaystay meel uu u hoydo markuu gaajoodana waxa uu cuni jiray cuntada baalka leh khudaarta iyo ugaadha muddada uu halkan joogay waxa uu ku noolaa deganaan iyo ammaan cid ogeydna may jirin laakiin 2 sano markuu halka ku noolaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo dhacay magaalo buurta u dhaweyd wuxuuna la yaabay wuxuu arkay xaysiimihii wadooyinku waxay ku wada qoran yihiin afka Ingiriisiga boorarkii iyo xaysiimihii astaanta uu ahaa dagaalku meesha way ka baxeen hablihii Jabaaniiska ahaana waxay gacanta wada haystaan askartii Mareykanka maxaa dhacay wuxuu soo qabsaday jaraa'id wuxuuna ku arkay war sheegay inuu Mareykanku hubka culus u isticmaalay magaalooyinka Japan ku yaala ee Hiroshima iyo Nagasaki Japan ay sanad ka hor isdhiibtay oo laga guuleystay warka markuu sidaa u arkay waxa uu ogaaday inaanay jirin sabab uu isku qariyay ay munaasib tahay inuu reerkiisii qabto wuxuu u jeestay koonfurta xabsigii uu ku xidhnaa ee Abashiri 50 maalmood ayuu lugta maalayay ilaa uu gaadhay magaalada Sapporo markuu magaalada marayay waxa uu dareemay gaajo waxa uu siri beer uu ag marayay tamaandho ka gooso laakiin waxa ku qabtay ninkii beerta lahaa wuxuu mooday tuug waxaanu ku soo qaaday weerar aan kala joog lahayn waxaana labadoodii dhex maray dagaal ku soo dhamaaday in beeroolihii caloosha majarafad lagaga jeexo nasiib darro beeroolihii sidii uu dhiig baxayay wuu dhintay Yoshi waa la soo qabtay waqti dheerna may qaadan in la aqoonsado inuu yahay Yoshi Shiratorigii dhibka badnaa isla markii ay ku cadaatay inuu ninkan yahay ninkii inta badan baxsaday ee laga fadhiyi kari waayay hore dilka u geystay imikana dilay ninka beeroolaha ah waxay maxkamadii gobolka Sapporo ku xukuntay dil sanadkii 1947 waxa la geeyay xabsiga Sapporo si uu ugu sugo inta la dilayo markan waxa loo sameeyay ilaala isaga u gaara waxaana qolka uu ku xidhan yahay 24 saacadood gaar ka hayay 6 askari oo qalabaysan qolka lagu xidhayna waxa loo qaabiyay si xabsiyadii hore ka duwan oo casriya albaabada daaqadaha iyo saqafku waxay ka samaysan yihiin bir xadiida waxay gaadhay kalsoonida laga qabo inaanu baxsan karin heer askarta ilaaladu ka daayaan katiinadii ay gacmaha kaga xidhayeen laakiin imika Shiratori wuu sii gaboobayaa suurtagalnimada uu markan ku baxsan karaana way iska yar tahay xilligii dilka lagu filin lahaana way soo dhowdahay haddana farmu dhaqaajin askarta ilaalada ahi waxay niyadjabka haysta ka arkeen indhihiisa markastoo ay u soo galaan waxa uu ku dhageegnaan jiray dusha sare ee xabsiga wuxuu u ekaa qof raadinaya qorshe iyo meel uu ka baxsado laakiin ilaaladu way ogaayeen inaanay dhici karin wuxuu ku fikirayaa maalin kasta way u soo gali jireen waxaanay hubin jireen inuu joogo markuu qubaysanayana waxay si gaar ah u eegi jireen daaqadaha iyo albaabada xabsiga ku yaala oo dhan
waxa socotay bil xilli qaboobihii baana la gaadhay. Yooshi waxa uu u muuqdaa qof warwar iyo walbahaar hayo. Furaashkiisa kama kaco, askartuna si kasta way ula hadleen, laakiin wuu diiday inuu kaco. maalin maalmaha ka mid ah ilaaladii waxay u soo galeen qolkii uu ku xidhnaa, iyagoo isleh ninkan waxba maqli la garaaca. waxay ka qaadeen go'i mise meeshaba ma joogo. way is eegeen, caqligalna weyla noqon weeday inuu baxsaday. haddaba markan sidee buu u baxsaday? aynu dib ugu laabana markii uu qolka ku jiray 6 askarina 24 saacadood ilaalinayeen. waxaynu hore u soo sheegnay inuu xagga sare eegi jiray markasta oo askartu u soo galaan, taasna uga muudan lahayn inuu xagga sare ka baxsado sidoo xabsiyadii hore uga baxsaday, balse wuxuu rabayuun inuu askarta khiyaameeyo. xagga sare waxa uu eegi jiray sidii qof qorshe wada, laakiin askartu may ogeyn inuu isyeelyeelayo ee uu qorshe kale hoosta ka wato. waxay askartu ka walaacsanayeen inuu ka baxsan karo markastana ilaalin jireen daaqada sare, laakiin waxay dayaceen oonay mar kaliya hoos u eegin dhulka, gaar ahaan dhinac uu hurday. baxsadka uu xabsigan ka baxsaday waxa uu la ahaa kii ugu fududaa uguna dhaqsaha badnaa ee uu sameeyo. kaliya wuxuu dhinac isaga guray alwaax sariir uu ahaa oo ku seexan jiray, waxaanu halkaa ka bilaabay inuu god dheer qodo. dabcan arrintani may fududayn, laakiin waxa caawiyey khibradda uu leeyahay baxsadka. meesha uu godka ka qodayay ciideedu aad ayay u jilicsanayd, sidaa awgeed waxa uu isticmaali jiray weelkii cuntada lagu keeni jiray, waxaanu muddo bilo qodayay godka. intuu hogga qodayay wuxuu ku guulaystay inuu qariyo si aanay askartu qorshihiisa u fahmin laba waxyaabood. kow, inuu ciidda dhulka uu ka soo qodayo uu ku kala guro alwaaxda hoostooda iyo gogashiisa si loo moodo inuu hurdo. waa talabaada marka loo yimaado wuxuu qorshaystay inuu jilliin sameeyo oo uu xagga sare eego si aan loo fahmin, askartuna xagga sare fiiro gaar ah ugu yeelato. ugu dambeyntii qaabkaas ayuu Yoshi Shiratori kaga baxsaday xabsigan oo ahaa kii afraad ee uu ka baxsado. iminka Yoshi wuxuu ka baxsaday 4 xabsi oo kala duwan. sheekadiisana way dhabaqday ama waxay u muuqataa wax maalayacniya, laakiin qisadiisan ila meereysada ah ee uu baxsaday ee soo qabta waxay ku dhowdahay dhammaad. sanad kadib 1948 Shiratori iskii ayuu u daalay. iminka wuxuu ku jiraa daada afartameeyada, inuu mar kala baxsadana niyadda kuma hayo oo uu ka weynaaday. waxaasina waxay la tahay sheeko ciyaalnimo. isagoo maalin ku nasanaya shaarica Katoni ee ku yaala magaalada Sapporo, waxaa agtiisa soo fadhiistay askariga aqoon umuu lahayn Shiratori, laakiin salaan kadib way isbarteen, waxaana dhex martay sheeko gaaban. Shiratori wuxuu ogaa inuu bad ku jiro hadduu u sheego magaciisa. wuu naxsanaa, hadalkana wuu u gaagaabinayay askariga. si kadiisa ayuu askariga u sameeyey waxaanu Shiratori filanayn. wuxuu Shiratori u soo saaray xabad sigaara oo dheer. Shiratori wuu yaabay, wuxuu la yaabay askarigan siinaya sigaarkana xilliga dalka Japan waxaa cabi jiray dadka taajiriinta ah, cid walbaana may goyn jirin. kadib markuu sigaarkiisii Shiratori wuxuu soo xasuustay sidii askartii hore u garaaci jireen una eryan jireen iyo wanaagga uu askarigani tusay. waxaaba noqday baraf. wuu iska fatahay, waxaanu ku hadlay wax kastoo niyadiisa ku soo dhaca. wuxuu u sheegay inuu yahay Yoshi Shiratori, ninkii sanadkii hore ka baxsaday xabsiga Sapporo, guud ahaanna 4 jeer xabsiyada kala duwan ka baxsaday. wuxuu ugu warramay si qalbi furan, wuxuuna isyidhi kolleyba sheegtay ka sheekee. waxaynu wada ognahay kadib wajagabixii uu kala kulmay Kobayashi inuu go'aansaday inaanu cid dambe aamini doonin, laakiin ninkii dhammaa xabad sigaar ah ayaa lagu soo xerogeliyey. dabcan waa la qabtay waana la xidhay, laakiin markan waxa loo muujiyey weji wanaagsan. laga yaabaa inay tahay qabashada la qabtay isagoo runta sheegaya oo raalli ka ah in la xidho, ama inuu nidaamkii cadaaladda Japan isbedel ku dhacay. maxkamaddii sare ee Sapporo way u naxariisatay Shiratori. waxaa la dhageystay kiiskiisii, waxaanay hoos u eegeen doodihiisii, sida beeroolihii gacantiisa ku dhintay oo uu ku dooday inaanu ogaan u dilin ee uu naftiisa difaacayay. waxaanu sidoo kale ku dooday inuu dhowr jeer ka baxsaday xabsiga, balse baxsadkiisaasi aanu askari kaliya waxba yeelin. iskaba dhaaf inuu askari wax yeele in isaga xaqdarro xabsiyada lagu garaaci jiray, sidaa awgeedna uu mudan yahay in la cafiyo ama in dembiga loo fududeeyo. ugu dambeyntii maxkamaddu waxay Shiratori ka bariyeeshay inuu dil geystay, halka laga masaxay ciqaabtii hore ee dilka ahaa, waxaana imka lagu xukumay 20 sano oo xabsiya. sidoo kale waxaa la isku raacay in loo wareejiyo xabsi ku yaala magaalada Tokyo oo ka duwan xabsiyadii hore loogu xidhi jiray ee aadka u qaboobaa, waxaana loogu geyn jiray wuxuu u baahan yahay. xabsiga magaalada Tokyo ku yaala ee lagu xidhay waxa la oran jiray Focho. waa lagu soo dhaweeyay, waxaanay ahayd markii koowaad ee askar ilaalaha wanaag kula dhaqmaan Shiratori. inkastoo ay xabsiga ka jirtay feejignaan badan oo la isleeyahay ninkani mar kale ayuu baxsan karaa, haddana xaqiiqadu waxay tahay inaanu Shiratori doonaynba inuu mar kale baxsado. waxaa kaliya intaas oo dhan uu baxsanayna uu ahaa dilkii xaqdarrada ahaa ee lagu xukumay, jirdilkii askarta u geysan jireen, iyo xitaa xabsiyadii qaboobaa ee lagu xidhi jiray. laakiin iminka uu ku qanacsan yahay xabsigan iyo sida loogala dhaqmay. ugu dambeyntiina wuxuu aqbalay xukunkii lagu xukumay. maxbuus kasta iyo askartii xabsiganna wuxuu u muujiyey akhlaaq wanaag intuu ciqaabtiisa ka dhammaysanayay ee uu xabsigan ku xidhnaa. 14 sano kadib
1961 ayaa la sii daayay muddo dheer kadibna wuxuu noqday nin xora waxaanu go'aansaday inuu tago magaalada Amori si uu halkaa nolosha dib uga soo bilaabo wuxuu la kulmay inantiisii yarayd oo weynaatay oo ahayd qofkii kaliya ee ka hadhay qoyskiisii baxsadkii badnaa ee uu sameeyay awgii wuxuu Yoshi Shiratori Japan ka noqday legend geesiya laakiin nidaamka ammaanka xabsiyada dalka wuxuu ku dhuftay dhirbaaxa weyn waxaanu u noqday tusaale ay ku cibro qaataan oo ay ku hagaajiyaan jeelashooda asxaabta sharafta leh ku cusub kanaalka hanaga ilaawina inaad subscribe na siisaan like na muuqaalka noo saartaan si aan u soo badana muuqaalada